kadib markii bilihii ugu dambeeyay uu xirnaa garoonka diyaaradaha degmada Garbaharey sidoo kalena duuliyaashii ama bayloodyadii diyaaraduhu ay ku andacoodeen in garoonku uu aad u yaryahay sidoo kalena aysan ka dejin karin rakaab 50 qof gaaraya kalena kici karin ayna ka baqayaan inay imaado khatar nafeed ayaa maamulka iyo bulshooyinka ku dhaqan degmada Garbaharey waxa ay garowsadeen inay si iskaa ah ugu daraan dhul bannaan kaasoo gaaraya ugu yaraan 600 oo mitir inay ku kordhiyaan garoonka si uu u noqdo garoon aad u weyn kana soo degi karaan diyaaradaha waaweyn iyo kuwa yaryarba waxaana labadii maalin ee ugu dambeysay garoonka ka socday shaqo aad u weyn haddaba warbaahinta jubbooyinka oo u kurgalaysa wixii garoonka laga qabtay iyo waxa loo baahan yahay ayaa waxa inooga warbixiyay baaq dheerna diray gudoomiyaha degmada Garbaharey Iimaan Cadow Kaarshe iyo maareeyaha garoonka Cabdirasaaq Cumar Sheekh Ismaaciil. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Saakay saad u jeedaanba waa subaxii labaad oo si sax ah aan shaqadii garoonka ballaarintii iyo dherer ku daristiisii baahidii loo qabay aan ku guda jirno. shalay oo axad ahayd oo ay si toos ah maalinnimadii shalay ahayd u shaqaysay iyo maanta oo maalinkii labaad oo isniin ah ay shaqadii wada cagafti dhulka aad u jeedaan iga dambeeya waa dhulkii ay shalay iyo daraado galinkii dambe ay ka shaqaysay cagaftu run ahaantii wacyiga iyo marxaladda uu ku sugnaa ama lagu jiray garoonka Garbaharey uu ku sugnaana cid hadda looga sheekeynaya ma jirto walow diyaaraduhu ay noo shaqayn jireen oo ay ka degi jireen haday tahay commercial flight-kii shacabka ahaa iyo haday tahay gargaarkii kuwii waday iyo haday tahay kuwii kaargowga ahaa intaba waa ka degi jireen baahida dhaqaale ma garanaysa garoon ee la rabayna waxay ku saabsanayd waa ballaarin dhererka garoonka lagu daro saakayna meeshii garoonka uu ku ekaa ee dhulka iga dambeeya ku aadan inta qardaysan ee cagaftu ay ku jirto markii laga reebo iyo inta aan ku darnay shalay iyo daraad gelinkii dambe iyo maanta oo hadda gelinka hore aan joogno run ahaantii waa dhul ku dhow 250 mitir waxaan jecelnahay 250 mitir haddii aan la sinno oo aan buuxino dhulku waa dhul dhagaxa aad buu adag yahay cagaftu shaqadii ay ka tarabiilka saxda ah oo loogu talagalay dhagax jabinta iyo dhul duleelinta uu qaban lahaa bay noo haysaa baahida iyo duruufahaana keenaysa inay dhulkaas asaga sida ay noogu shaqaysa dhaqaale ahaan iyo ma garanaysaa isku tashi iyo waxa hadda gargaar iyo kaalmo oo system dawladeed haday noqoto state-kii Jubbaland oo gobolkan ka tirsanaa gaar ahaan xarunta gobolka Gedo iyo haday tahay heer federaal midnaba waxa hadda dhaqaale ahaan naga soo gaaray ma jiro isku tashi bulsho iyo ballan aan wada galnay iyo isku duubni baaq oo aan rabnay inaan dadka deegaanka ganacsatada gobolkan ku dhaqan gaar ahaan kuwa Garbaharey ku sugan wacyi kasta iyo marxalad kasta oo maanta lagu sugan yahay inay u dhabar adeegaan baa la rabaa mas'uuliyadii aan haynay ee cabashadeedu nagu soo dhacaysay haday tahay ganacsatadii diyaaradaha iyo ma garanaysaa dhankii diyaaradaha iyo haday tahay bulshadii deegaanka u dhalatay iyo kuwa Soomaaliyeed oo baaq intaba ka soo dhiibanayay garoonkan ma ahayn caqabada kaliya ee maanta uu xirnaa dhan siyaasadeed kaliya ma ahayn siyaasad ahaan maanta gobolkan hadda iyo xaruntan gobolka iyo garoonkan midnaba uma xanibna muddo hadda 3 bilood ah ku dhawaada waxaan ka shaqaynaynay sidii garoonkan hal mar loogu gacan qaadi lahaa wax dhaqaale oo hadda saakay noo soo gaaray ama maalmihii la soo dhaafayna soo gaarayna ma jiraan markasta oo wax muuqda iyo ma garanaysaa shaqo bilaabatay iyo talaabo hore u socod aan la qaado bayna bulshada ku dhiiran kartaa in wixii jeebkooda ku jira ay bixiyaan gudoomiye Iimaan Cadow Kaarshe oo gabagabadii dhex taagnaa garoonka ayaa si faahfaahsan uga hadlay halka ay shaqadu marayso sidoo kalena baaq dhinacyo badan taabanaya u diray dawladda federaalka midda maamul goboleedka iyo dhammaan shacab weynaha ka soo jeeda gobolka Gedo inay ka qayb qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Garbaharey ilaahay baa mahad iskale maanta waxaan halkan u taagnahay waxaan rabaa inaan kelmado ka iraahdo shaqada aeroboortka ka bilaabatay oo socota maalinkii saddexaad wax weyn ay nooga qabsoomeen oo sidaad arkaysaanba maartay aan ku darnay aeroboortkii 200 oo mitir wax ka badan madaxii kalena wali uu noo dhiman yahay baaqaas waxaan rabaa inaan gaarsiiyo oo aan halkan ilaahay mahad celintiisa ka sokow aan gaarsiiyo dadka
reer Garbaharey dadka reer Gedo dadka reer Jubbaland dadka Soomaaliyeed dadka islaamka ah intooda wanaagga iyo samaha jecel oo ganacsatada iyo culimada leh iyo aqoon-yahanka iyo gabdhaha iyo qurba joogta nooc walba oo ay yihiinba baaqaas iyagaan u dirayaa waxaan leeyahay garoonkan muddo hal sanad diyaaradu kama soo degin ismaandhaaf khalkhal siyaasadeed oo jiray iyo caqabado uu yeeshay garoonku oo ku yaraaday diyaaradihii qaar ka mid ah inay ka degi waayaan kuwa kooban oo kuwa Fokker 50 la yiraahdaa ka degi jiray intii kale way ka degi waayeen Fokker 50 hadee diyaarad kaligeed anagu aan leenahay ma ahan shaqooyin kale ay lahaayeen shirkadihii marka diyaarado badan oo ay leeyihiin baa yiri kama degi karno maadaama ayna ka degi karin marka inay diyaarad walba ka degi karto oo aan ballaarin oo dheerayno ayaan go'aansanay dadkuna ay soo wada jeediyeen iyo injineeradii iyo kabtanadii diyaaradaha waday sidaasaan u ballaarinaynaa maalinka saddexaad cagaf baa ku jirta qardaynaysa shaygiisii iyo waa noo dhiman yihiin maaragtay labeelayntiisii iyo maaragtay adkayntiisii cagafta kaliya waxay naga qaadanaysaa saacadii $120 halkii saac dhaqaalaha aanu haynana oo gaar ah iyo maaragtay gaar qof isaga xil saarayna ma jiree waa midka jeebabkeena ku jira dhamaanteen waa midka aan rabnay inaan sadaqaysano haddaad tihiin dadkaas aan soo sheegay waxaan doonaynaa inaad ka soo qayb qaadataan aragtaanna shaqada meesha ay marayso mid aan maartay afmiishaarnimo iyo uga dan leenahay faanfaan ma aha bulshadaas midka jiran midka waayeelka midka madaxda midka hay'adaha ka socdo oo dadka aan u gargaari lahaa iyo adeeg walba oo bulshada la rabaa iyo qofkii maartay si degdeg ah meel u gaari lahaaba airport shaqeeyo inuu noqdo oo dadkaas aysan dad go'doon aan noqonin sidaa weeye waxaan uga jeednay ujeeddo kale oo kaleenahay ma jirto shaqada aan qorraxda u taaganayn hayno waa shaqadiinii waxaan rabnaa marka idinkoo qurbaha iska joogay maaragtay guryaha iska harsanayee maqaayadaha ku fadhi dirirayee wax kale oo shaqadood haysaan aan la aragee xil nin uu hayo ku haystee lahaay hebel maartay ama dhaliishiisa looma baahan maartay inaad annagana nooga mahad celisaan qorraxda aan u taaganahay aan dantiina uga shaqaynayna wiilasha yaryar ay dhufayska ugu jiraan maaragtay habeen iyo maalin bay u soo jeedaan innaguna hadda aan qorraxda u taaganahay ujeedada aan kaleenahayna ay tahay in adeeg bulsho uu ka dhaca meeshaas warsame xaaji faarax warbaahinta jubbooyinka degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo.